waxaa maanta kaantaroolka galbeed ee magaalada Berbera lagu soo dhaweeyay koox ka socotay dalka Kenya oo ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaraysay magaalooyinka Hargeysa, Boorama iyo Berbera oo ay galabta la ciyaari doonaan. waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Saaxil ka degmada Berbera iyo ciyaartoyda magaalada Berbera. waxaana dhalinyaradani hogaaminayay safiir ku-xigeenka Somaliland u fadhiya dalka Kenya iyo wasiirka ciyaaraha ee Somaliland. waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose magaalada Berbera Cabdikariin Aadan Cabde, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saaxil iyo barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan, waxayna dhalinyaradani ku soo dhaweeyeen magaalada Berbera. farxad weyn maanta inoo tahay in maanta ku soo dhaweeyno halkan kooxda dhalinyarada ah ee reer Kenya iyo ganacsatada ka socota dalweynaha Kenya ee walaalahanahay haddii nahay maamulka gobolka iyo degmada wasiir sidii caadada waxaan idinku soo dhaweynaa dhammaantiinba gacmo furan. waxaan leeyahay ku soo dhawaanay magaalada xadaarada Somaliland, magaalada ilbaxnimada. waxaan rajaynaynaa in farxadii aad kala kulanteen qaybo kamid ah gobolada dalka farxad labada ama ka wanaagsan nagala kulmi doontaan. aad baan idin soo dhaweynayaa. waxaan rajaynayaa kulankan isdhexgalka ah inuu qayb ka noqon doono xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal. waxa farxad weyn noo ah oo farxadeedu taaganahay inaan soo dhaweyno koox ku ciyaaraysa magaca dalka Kenya oo ah naadiyada heerka koowaad. kooxdan waxay ka soo ciyaartay magaalada Hargeysa iyo magaalada Boorame. maantana innaka inoo leeday hadalka waan soo gaabinayaa. leenahay soo dhawaada ciyaartooga iyo ganacsatada uu hogaaminayo safiir ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya Kenya Mr. Sharmarke. waxaan leenahay soo dhawaada gabdho furan baan ku soo dhaweynaynaa. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolka Saaxil, waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmada Berbera. runtii labada maalmood ee hore aad joogteenba waanu idin filaynay, waan idin sugaynay. maxaan ku waabad nagu raagteen baan islahayn waxaan islahayn bilowgii miya Saaxil ka bilaabaan. laakiin haddaanu baydi dambe sii yeelanana welcome baan idin leenahay, waan idin soo dhaweynaynaa. gabdho furan baan idin soo dhawaana fariin fiican. runtii waxaad ku aragtaan dalkan ayaad ka jawaab celin doontaan. caqligiina iyo maskaxdiina ayaa marka maxaan ku jawaabta bixin doonto dadkiina reer Kenya siin doona. waxaan aad ugu hambalyeeynayaa safaaradda Somaliland ee Kenya oo hadda wafdigan hogaaminaya Ambassador Sharmarke. hawsha iyo xiriirka fiican ee ay soo sameeyeen aad iyo aad baan maxaan ku ugu hambalyeeynaa. safiir ku-xigeenka Somaliland u fadhiya dalka Kenya Ambassador Sharmarke Geele iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland Boss Mire Maxamed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera uga mahadnaqeen soo dhaweyntan ay u sameeyeen dhalinyarada. maanta waa maalin weyn oo farxad runtii mar kale inaynu isugu nimaadno gobolka Saaxil iyagoon wadno ciyaartooy iyo ganacsato runtii doonaya inay dalka bartaan, inay xiriir la sameeyaan, inay runtii isdhexgal iyo muunayn ay runtii noogu yimaadeen. aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee diiran ee ugu hortimaadeen wafdiga una soo dhaweyseen, isla markaana ciyaartooygiina iyo maamulkii gobolka kii degmada dhammaan baad ugu dhantiin maalintan quruxda badan. waxaan noo rajaynayaa ciyaar wanaagsan oo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo soo dhaweyn ka muuqato. waxaan idin wadnaa waa saaxiibo cusub oo runtii isdhexgal iyo horumarin iyo runtii magaceena inay kor u qaadaan runtii tacab badan u soo galay. waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa waa mahadnaq maanta safaaraddeena Kenya ambassadorka iyo ku-xigeenkiisa Baashe iyo Sharmarke. waxaan kaloo dhammaan guud ahaan uga wada mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkeedu kaalin aad u qaaliya uu ka qaatay ciyaaraha oo ilaa security-ga ilaa soo dhaweynaha ilaa waxa uu nagala qayb galay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay ciyaar wanaagsan baynu filaynaa in halkan ka dhacdo. ciyaar asluub leh baynu doonaynaa inay ka dhacdo, akhlaaq leh oo aan dadka aan xagxagan. waxaanu doonaynaa inay sida ay ugu soo dhammaatay Hargeysa iyo Boorame si ka qurux badan inay tan ku dhammaan doonto. waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa dhalinyarada kale ee gobolada kale joogta. reer Burco dhan bay haysteen aroortii wala 7 magaalada in yar galay. boqolka ka badan intay qabsato maxaa noo soo gaarsiin waaya anaga. talaa wax sameeyay programka wax iska lahaa safaaradda. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Badda Cas, magaalada Berbera.